سياسي مختار عبد الله الساهد وكميدا سياسيينتا dalkani Somaliland ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer waxa uu eedeymo kuludusha kaga tuuray xukuumadda talada dalka Hayse Axmed Siilaayo taasoo uu ku dhaliilay inay u tafaxaydatay caburinta iyo cagajuglaynta saxaafadda madaxa banaan taasoo uu ku sababay inay boorka isugu liqayso sidii aanay u dhici lahayn doorasho xor iyo xalaala waa sidoo hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu siyaasigu carabka ku dhuftay isla mar ahaantaana uu baaq u jeediyay bulshooyinka ku dhaqan dalkani Somaliland taasoo ugu baaqay inay farti ay ku doorteen xukuumadda haatan talada dalka Hayse ay dib uga laabtaan si looga baxo buu yiri musuqmaasuqa iyo maamul xumada dul hooganaysa dalkani Somaliland asagoo arrimahaas ka hadlaya siyaasigu waxa hadaladiisii kamid ahaa akiran horena uu uga hadlay intii ka hadlayay maantii taagan waxa uu xiriir intii ka hadlayay maanta barata kala jiro حصل السياسة وضع مانتي سياسية قلبستين حصل وقتها ورحمك حصلين لكن سبريرا وكسر ويقولنا الجالة بدك عليك هاي الجالة هاي كلمة كقولها وكل ذي يعني وواحد ترسم بقولي تبغى مصابح وحاك سيمان يوسف سجارة كتير يعني فضل عبد بريكا بس كل شيء ممكن حياة سوى حياة بريكا وبريا حياة واحد وكسر الله مرك حياة كذا بيجي حياة وكان الله حياة كوني كون صور ربي أفصل وحياة ممكن حياة كاور سيد الرسول فوضى واحد لهي مش بشار تيجوا ليش الديان كنا هذول كلام وربا حير كذا صح يا واتاسو كلام وممكن في أنا وكسون دي شعب كأي ودي ربنا يكون ركزين ده وبدهم يدركوا بقولوا يسوي أركيا يجعل كرمون ويدركوا إيه يبغوا ولا جالب وبدهم أركيا عدكي أكوسو صارتين بطورو كذا قاعدة ماشي وبرواقة آدم محمد برواقة هبي